فارح حسين محمد قدومي كحول شمعة السؤال برعو وحان هلقا كاقا هادليا ninkan la yidhaaho dab casar caynka ah u eg ee ribshada la yimi waddankeena Somaliland ayaa fara badan oo ku hadlay waddanka dhexdiisa kaga hadlay markii horena nin hadafkiisu cay uu yahay buu ahaa meel kasta ha joogay nin dadka caayun buu ahaa waxa ka xumahay kuwa soo dhaweeyay yaanu arkaynay shaqaalaha airportka ka shaqeeya ah waxa weeyaan dad baa u hadlaya ninkaa ku soo duulay waddanka Somaliland marka waxaan leeyahay ida sharciga ninkaa waa in wax laga qabtaa waddanka laga qabtaa oo in maxkamad la keenaa waxa weeye biliiska hortiisa wuxuu kaga hadlayay iyo waxyaabaha ku hadlaya wax aad loo qisoodo weeye rag baa ku raacsan waxa ka xun asaga oo ka xunba ninka la yidhaha Ordoon de markaa adduunyadu isbedel baa ku yimi waxa ku yimi wax khayr la sheegi jiray in marka la taageero qofka waxa xun sheega ee mushkiladda wada waa masiibo marka waxaan leeyahay aniga u mahad celinaya afayeenka booliiska taliyaha booliiska waxa weeyaan hay'adaha sharciga oo dhan waa ku taageereen ninka in la qabto oo sharciga la dhasiiyo kuwii soo dhaweeyay shaqaalaha airportka ka ahaa ee soo dhaweeyayna in sharciga la hor keeno iyagana waxa kaloo jirta ninkan Ordoon la yiraahdo de waddanka Somaliland masiibo ka dhex wada nin u dhashay horta maaha sidaan filaayo waa nin ku soo dhuuntay waxa weyn masiibo wadun buu isagu taageeraya wixii dhibaato waddanka ku aan buu isaguna taageeraya marka taada loo baahna waddanka cid baale oo wadal baale cid baa ka mas'uula ammaankiisa laga mas'uul yahay oo cid baa iskale kolka anigu waxaan ka mid ahay waddankan cidda iskale waxyeelada gaadhan ka xumahay cidda caaysan ka xumahay cidda wuxuu geysanaysan ka xumahay marka waxa aan ku boorinayaa hay'adaha sharciga inay sharciga geeyaan ninka iyo wixii kale la mid ah agaasimaha duulista loo magacaabay duuliye sare ninkaas oo nin aad u qiimo badan waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahay aan ka codsanayaa war kuwii ku soo dhaweeyay shaqaalaha airportka ku soo dhaweeyay ninkaas waa nin kharsunaasa nin Soomaalinimadu inagama dhaxayso dalka inaga dhaxeeya ninka in la soo dhaweeyo inuu waddankeena yimaado total midna ma ahayn nimanka dhalinyarada shaqaalaha ahayd ee soo dhaweysay waa in tallaabo sharci laga qaado nin wafti cid kale matalayo soo degay mooy nin caano la yaqaan baa kharsunaasa oo caayad dadka wuxuu madaxweynaha kula hadlayay wuxuu dadka mageenada kula hadlayay waddankan qabiil male qaran baale waddankan Somaliland qaran baale qabiil male wuxuu afkiisu qabiil iyo madaxweynaha qaranka Somaliland ee sharafka badan iyo wuxuu caay oo kale qabiilada Somaliland kamida oo aan waxba u geysan waxba ka ogeyn marka ninka waxaan codsan lahaa ninka in cidii keentay iyo cidii ku soo dhaweysay waa dambiilayaal cidii u hadashay ninkasoo waxa ku hadlaaya waa dambiile aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi golihii wasiiradaha iyo wasiirka xogeenadu soo magacaabay sharaf iyo ciise Allah ku siiyaan ku leeyahay od guuleysatay baan ku leeyahay qarankeena guuleystay baan ku leeyahay annaka guuleysanay ilaahay ku daayo xilkaad alla ku saarayna Allah ku fududeeyo ilaahay ku garab qabto waxaan u baahanay oo dhaxanta naga celisa waxaan u baahanay sharci naga celiya kuwa dalkayga ku soo duulaya waxaan u baahanay kuwa gudihiisa kamid ee khalkhalka gudaha waddanka ka wada in sharcigu qabto oo indho dheer loo yeesho kuwa dhibaatada gudaha ka wada waayo dadka reer Somaliland qaar baa dhibaata habeenoo maalin ku foogan sidii u dhibaatoobi lahaa kuwa waxa weeye in wax laga qabto sharcigu sareeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.